munaasabad si heersare loo soo agaasimay ayaa maanta ka qabsoontay dugsiga hoose dhexe Gol Khaatumo ee magaalada Laascaanood. munaasabadan ayaa waxaa loo qabtay ardaydii ka qalin jabinaysay dugsiga hoose dhexe Gol Khaatumo ee magaalada Laascaanood. ardaydan maanta ka qalin jabinaysay dugsiga hoose dhexe Gol Khaatumo ayaa dufcadii 17aad ee ka baxda dugsiga hoose dhexe Gol Khaatumo, waxaana maamulka dugsigu ay shahaadooyin guddoonsiiyeen ardaydii ka qalin jabinaysay dugsiga hoose dhexe Gol Khaatumo ee muddada dheer wax soo baranaysay. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulaha dugsiga hoose dhexe Gol Khaatumo, macallimiinta wax ka barta dugsigaasi iyo arday aad u tiro badan, abwaano waxgarad iyo odayaal. waxaana mas'uuliyiinta halkaasi hadalka iskaga dambeysay ee la dardaar ardaydii ka qalin jabinaysay dugsiga hoose dhexe Gol Khaatumo iyagoo ku booriyay inay sii wataan waxbarashada. وأنا كم وقتان أردنا Gol Khaatumo سنة هيدين 6 سنين يسوي تاجلين. كقرن شبينة سكول كGol Khaatumo سنة كان 2016-2017 هذا يعني بيكون مهدعين يا فهمتي إن بدن بينه سوي بتشوفني دار أردنا كبدن كولاد إلى إيروي شوفين دارها دحدا ay ka soo galeen 2 sano 3 sano 4 sano qaar baan wada joognay arday kasta oo hadeer ka baxay mid walba waan isgaranaynaa aqoontiisa iyo akhlaaqdiisa intaba waan fahansanahay mid walba meel buu ku suntan yahay marka runtii waxaan jeclahay ardaydu kulli isku nooc ma aha haday xaq waxbarasho tahay iyo haday xaq akhlaaq tahay markaa waxaan leeyahay inaad akhlaaqdiina hagaajisaan aqoontiina kor u qaadaan oo waxbarashadiina aad sii wadataan. group discussion ardaydiinii ka baxday Gol Khaatumo sida aad u kala liidataan ama aad u kala wacantiin inaad u samaystaan group waxaan la yiraahdo tahriibta waan idin sheegay. tahriib baa horta dadkeena aafaysay dhibaatooyin badan baa jira. tahriibta waxa la yiraahdo waa in kala dardaarmay sida aad ogtiin waxa aad iyo aad bay dadkii u dhibaataysan tagay ee rafaaday ee meel walba maray wax mustaqbal ay hayaan ma jiraan. marka arinta tahriibta waxaan leeyahay ka feejignaada dhalinyaro baatiin rag iyo dumarba waxbarashada ku dadaala wadankiina aamina. haweenku waa door muhiim ah ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda. haddii marka la eego haweenka waxbarashada waxa fiican ee sida fiican u qiimeeya waa dumar. marka la eego markasta xagga guriga waxa si fiican u qiimeeya waa dumar. waxaan leeyahay marka ardaydan sharafta iyo qiimaha leh halka saakayga la qalin jabinaysa hablaha gaar ahaan ka soo qayb galay iyaguna xirfadda sida sharafta iyo qiimaha laga soo qayb galay. waxaan leeyahay walaalayaal waxbarashadu waa goob muhiim ah ay ku taala aqoontaada tacliintaada meel sare ayaad ku gaaraysaa. heer fiican wax ka baro goob kasta tagtid marka aad guri yeelatid mustaqbalkaaga heer fiican waxbarasho ka gaadh ma aha inaad kaga tagtid caruur iyo guri. walaalayaal aqoonta maamulku idin balay oo macallimiintu idin barto oo goob kasta heegan idinku idinla taagnayd ilaa idin saaka dayicin oo heer jaamacadeed ilaa heer himiladaada ay gaadhayso aad ka faa'iidaan. maantana guul baan idin leeyahay ee idin rajaynaya. waqtigu waa fursadana waxaad haysataa inta ay kula joogto. mar haddii ay ku dhaafto fursadaas kuma soo noqon doonto mana noqon doonto mid aad ka faa'iideysan doontid oo mamaad ka qoomaysaan waxba kuma anfici doonto. waxaan idin kula dardaarmayaa waalidkiin sida ay rabaan yeela talada waalidkiin iyo talada aqoonta la idin siiyey ee aad haysataan raaca. waxaad maanta gacanta ku hayso haddaad rabto inaad mustaqbalkaaga fiiriso waa maanta wixii aad gacanta ku hayso inaad fiiriso waayo waxa maanta aynu ordanaay waa sida bariinta u maalmo weeye. wanaagga aad maanta wadaan iyo qalijibinta iyo waxbarashada aad wadaan horta waa inaad meesheeda ka sii wadaan. waa maxamuud aadan askar maxamuud gurey telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Laascaanood.